wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee xukuumadda Soomaaliland oo maanta xariga ka jaray warshad cusub oo loogu talagalay inay soo saarto baraf isla markaasina ay ka faa'iideysanayaan kalluumaysatada ku dhaqan degmada Saylac iyo guud ahaan gobolka Hirshabeelle. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ayaa waxa ku weelinayay wasiir dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo sidoo kale midowga Yurub isla markaasina ay fulinteeda leedahay hay'adda Fair Fisheries. munaasabaduna xariga kaga jiray wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ayaa waxa sidoo kale kala soo qayb galay safiirka u fadhiya dalka Djibouti xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimaha kalluumaysiga dalka Djibouti. wafdiguna hogaaminaya wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ku soo dhaweeyay degmada Saylac mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. mashaariic badan baa la sameeyaa mashaariicdaas marka door kala socdaan bay istaagaan marka inaad ku faraadaytaan aad ugu ilaashataan sida wasiir sheegay Fair Fisheries marka ka socda sanadka dib markii yimaadeen mashruuca taaba galay oo socday Saylac aniga taariikh guuleeda sanadkii 2016 waa nimid ana agaasimo guuda shan mashruuc baa ka furay waxa ugu horeeyay Djibouti halka jooga marka xarunta waxa xarun u furan kalluumaysiga Djibouti iyo kalluumaysiga reer Soomaaliland waad ogtiin xiriir baa kala saxanay bardhaweyd aniga wasiirka Maxamed Axmed Xawaale iyo wasiirka Ali Jaamac aan xiriir xagga kalluumaysiga oo reer Djibouti ma karaan badda Soomaaliya kalluumaysan karaan kala inaynu maanta mashruucan bilowgiisii koowaad aynu ku furno waxa kaloo iyaduna qiimo weyn leeyahay mashruucani uu maanta bilow yahay ee dhammaadkiisa waqti badan runtii ay ka hadhay mashaariic badan oo horumarineed oo wasaaradda kalluumaysigu ay ka fulinayso xeebaha Soomaaliland. gabagabadii munaasabadan ayaa waxa isagu halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda xukuumadda Soomaaliland. anagu 18 goor baan dhisay 18 intaan xilkahay markii 18aad weey ilaah baa yaqaan marna tanina doomo laakiin khayr baa idin rajeynaya guul baa idin rajeynaya ilaahay barkiis waxaan kaga mashruucan maanta xariga laga jaray ayaa waxa si weyn uga dhursugay shacabka ku nool degmada Saylac isla markaasina ay ka faa'iideysan doonto kalluumaysatada ku dhaqan degmada Saylac. waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadalool wararka Ariel TV magaalada Saylac.